السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت له kusoo dhawaada barnaamijkan reactionka ee ugu dambeeyay musalsalka Habboon qeybaha 24 ilaa 25 waa qeybihii ugu dambeeyay ee musalsalka Habboon lagu soo afjaray. ugu dambeyn la soo gabagabay musalsalka xiisaha lahaa oo dadkii oo dhan la dhaceen gaar ahaan dumarka ragga inkastoo ay ku yaryihiin laakiin dumarka aad iyo aad u socdeen filimkan musalsalkan Habboon. asagana wuxuu ahaa musalsal iska degan oo maasha Allah oo qiso fiican oo Soomaalida badankooda qabsatay. dad badan oo waxaa jira waagii oo dagaaladii hore iyo burburkii arintan oo kale oo Habboon ku dhacday qisadan laga hadlayo dad reality ugu dhacday jirto marka xiiso oo caadi ahayn oo lahaa. marka filimkan kulli hadda qaybta ugu dambeysay waxaa lagu soo afjaray 25aad qaybta 24aad hadii aan ka soo bilowno horta qaybta 24aad marka fiirsanaysid waxaan u maleynayaa filimka inuu sii soconayo waayo meelo badan oo waxa arkay xoogaa oo gaab galayo dhameystirkii badnaa oo la wada sugayo wuxuu noqdayba qaybta 25aad qaybta 25aad marka lagu dhameystiray waa lagu soo gabagabay barnaamijka dhan. marka filimkan kulli qaybta 24aad qisadii koodii hore markii guriga la keenayay Habboon oo ay ka hadlay marka maamada ka sheekeynayso maamadii u imaanaysa Habboon kadib maamadii u sheegayso in ayada ay u bixisay magacaas Habboon guriga markii la keenay iyo xaaladaas dhan ay ugu sheekeynay way ku soo qancay. laakiin qaybta Jacfar ayay u soo laabanaysaa Habboon meeshii cafeteria u imaanaysa waxay leedahay xirsi oo jooga Jacfar aaway. marka Jacfar asagana barnaamijka wuxuu u fahansanaana arinta oo gabadhi dhuntay iyo arinta oo Habboon in xoogaa isku mid yihiin asoo u fahansan haddana waxaa la fahansiinaa sheekado dhan oo kumbaleeda la fahansiinaa si xataa wuxuu muujinaa oo asagana oo qiiro leh woona la yaaba arinka xataa wuxuu leeyahay walaasheeda Habboon lama dhihi jirin waxaasoo dhan si fiican loo fahansiinaa. waxaa laga dhaadhicinaa DNA-ga in asaga uu tago oo 50% laga helayo inay walaalo yihiin in kale. qaybta 24aad xataa waxaa ku jirto qaybta Axmed iyo Idil iyo Axmed oo sagootinayo kale oo barnaamijkooda oo xiriirka soo afjarmayo iyo waxaa arkaysaa oo kale xiriirka dagaal ka dhaxeeyay Esther iyo Ismahan oo ayadana heshiis ay noqonayaan oo ayadoo lagu tusinayo Ismahan oo si fiican ugu taxdirayso Esther inkastoo ay uur leedahay oo kale matalayso. qaybtan 24aad waxaa ku jirta xataa qaybta wareysiga oo lagu muujinayo qofka wariyaha ah wuxuu rabo inuu sheegayo mararka qaar oo xataa dad la xisaabtamayo oo qabanayo aysan lahayn ayay ku cadeynaysaa arinkan. marka qaybtan waxay ku muujinaysaa wareysiga wuxuu leeyahay soo lagama yaabo in oo aad soo dhumin oo hooyada iyo aabbahay ku soo tuureen. marka waa hadal gaf weyn ah qofka wareysanaysidna in aad ku dhahdid ma aha hadalladaas asaas xanafta u leh. marka kulli qaybtaasna waa qayb wariyaasha anshaxooda ka turjumayso. qaybtan kale oo 25aad waa ayadana qaybta ugu dambeysay aadna u xiiso badneed. qaybta 24aad marka la fiirsana waxa uu maleynay filimka inuu ka dhiman yahay adiga hal isbuuc ama 2 isbuuc oo kale inay dhiman tahay u maleynay. laakiin qaybta 25aad waa qaybta ugu dambeysay oo filimkan Habboon lagu soo afjarayba. taxanaan Habboon waxa ugu dambeysay qaybtan 25aad waxayna ku bilaabanaysaa Jacfar oo waalidiintiisa u la imaaday videogii laga duubay Habboon oo kaga hadlayso taariikhdeeda. marka aabihii iyo maamadii fahansiinaa barnaamijka iyo gabadhan arinteeda iyo arinta oo gabadhooda yare inay is leedahay. markuu fahansiiyo oo ka dhaadhiciyo maamada xataa si fiican ayada xataa u fahmaysaa maamadii lagu cabsanay in arinka la fahansiiyo. qaybtaas koowaad waa qayb aad iyo aad u xiiso badan qaab jaliinka iyo odayga iyo maamada iyo Jacfar bay u sameeyeen waa qayb oo maasha Allah. marka laga soo gudbo arinkii xildhibaan Jaamac iyo Ismahan ayadana way soo afjarmatay sidii Axmed iyo Idil bay u soo afjarmatay sheekadooda ay xildhibaan Jaamac iyo Ismahan ay u soo afjarmatay sheekadooda. markii horta filimka oo dhamaaraban waxa arkay qaybo badan oo soo jarjaraya
marka ayagana qaybtaas ay ka mid yihiin waana la dareemay markii ayaga arintooda sheekooyinkooda soo afjarmatay inuu filimka gabagabo yahay waan dareennay marka laakiin waxaa la islahaa isbuuc kale ayaa dhiman. qaybta 25aad waxaa kaloo ugu xiisaha badnaa ayadana ugu dambeyn haddana waxaa soo bandhigtay Jamaal arinkiisii oo muddo badan qarqarinayay oo ka xishoon jiray ayaa hadda aad soo bandhigmay oo iskuulkii oo wuxuu ku balamiyay ay dhigi jireen meeshaasoo ugu sheegay arinkoodii dareenkii uu qabay meeshana arintii ay ku dhamaatay jecelkiisuna uu soo bandhigtay. qaybta kale Zubayr ugu dambeyn asagana Habboon ayuu afis weydiistay dhibaatooyinkii iyo lugooyinkii oo uu sameeyay. ugu dambeyn waxaa guriga imaaday qoyskii oo filimka ku saabsanaa oo rasmiga ahaa ee u dhalay Habboon. guriga maama Amran ayaa la imaaday waxaana laga wada hadlay arintii gabadhoodii yareed ee maqneed. marka waa la iswareystay si fiican la isku wareystay. qaybtaasna waxay ku cadeynaysaa in ay isfahmeen waxayna dhaheen dib ayaa u kulmi doonaa arinta DNA-gana wixii ka soo bixi doono aan fiirinaynaa. DNA-gaas ayaan ku kalsoonahay wixii soo bixi doonaan fiirinaynaa. ugu dambeyn arintii DNA-ga uu soo baxday isbitaalkana la iskugu yimid cid maqan male. Zubayr iyo familkooda xataa way joogaan. isbitaalka Kumbaleed ayaa loo soo buuxsamay dadkii filimka ku socdo dhan ayaa isbitaalka iskugu yimid. ugu dambeyn waxaa natiijada ayaa la shaaciyay waxaana is yeeshay dhiigga Habboon iyo dhiigga Jacfar sidaasna walaalo ayay ku yihiin. filimkana 5 sano kadib ayuu dib noo dhigeen qoraalkan noo muujiyeen anagoo haddeertan filimka aan fiirsanayna 5 sano kadib ayayna geeyeen. waxaana dhacday 5 sano kadib Habboon oo cunug dhashay oo reer dhaqanayso yaana guursaday Jamaal. filimkii sidaas ayuu ku dhamaaday. qisadii ka turjumaysay Soomaalida khaasatan dadka saasoo kale u dhumo Soomaalida ka midka ah qisadii saas ayay ku soo afjarantay. ugu dambeyn musalsalkii taxanaha noo ahaa reactionka aan ka bixin jirnay Habboon qaybtii ugu dambeysay 25aad qaybta hadda ahayd. qaybaha kale filmaanta Soomaalida iyo jiliinka waa sii wadi doonaa. isma dhaafno filimka ayaa dhamaaday laakiin barnaamijyadeena ma dhamaanin. idinkana nagu xirnaada page-keenana channel-keenana wuu cusub yahay kor loo qaado. waana ku mahadsantihiin like-ta waa nagu dhiirigeli comment-igana wax walba oo fikrad aad qabtid kasoo hadal. mid kale waxaa jirtay astaan kaarta page-keeda ay soo dhigtay oo filim ku saabsan asagana taxano waaye Hayaan ayaa lahaa. filimkaas koley asagana qisadiisa wuxuu xambaarsan yahay iyo waa arkeena ayadana filimkaas Hayaan reaction aan ka soo bixin doonaa qaybta koowaad ilaa iyo qaybta u dambeyso sidaan oo kale. marka qaybaha oo filmaanta kale oo arday iyo ayadana waa sii wadi doonaa reactionada jiliinka Soomaalidana waa sii wadi doonaa. nagu xirnaada nala jooga noona dhiirigeliya